moolka Soomaaliyeed oo Westiga ku yeelo ayaan waxaa wareysanay shacabka Soomaaliyeed in ay rajo ka qabaan Soomaaliya. marka ugu horeyso waxaan ku bilaabnaa Cabdullaahi. su'aasha aad weydiisay macnaha ma rajo ma ka qabtaan Soomaaliya inay hagaagto. dabcan Soomaaliya waan u dhalanay oo wadankeena hooyo markaan kaaga jawaabo waa maya. wadanka Soomaaliya rajo kama qabno inuu hagaago sababtoo ah aniga waxaan aaminsanahay Soomaalidu dad aayahooda ka tashan kara inay saxeen markaa waxay ku qaadatay 17 sano ay ku qaadatay inay dantooda ay gartaan. marka dabcan hal way kaliya iyo markaan ay dhigay ka hadlo waxaa filayaa Soomaaliya way kaliya isku imaan karto inay tahay in sharciga islaamka ah oo xaq ah in lagu xukumo kaliya ayaa Soomaaliya isku keen kara. waa marka situation-ka hadda Soomaaliya jira oo qabaa'ilka iyo dhibaatada iyo qolqolada nacab iyo isnaceebka meeshu gaaray weyga kaliya oo loogu bixi karo inay tahay alla ka cabsi kaliya inay tahay oo Ilaahay loo noqdo dadkana taas kaliya ay ku midoobi karaan.